tubaakadu dadka waxay moodaan tan oo afka la gasho oo keliya tubaakada sigaara laga sameeyaa waa tubaako baal hadda waxaa soo baxay taambuu la yiraahdo sida tubaakada dhalinyarada ay afka gashtaana oo ay ku marqaamaan waxaasoo dhan inaa hal daraaf laga soo dhigo ayay ahayd laakiin hadda si guud wuxuu uga hadlay wasiirka tubaakada oo keliya adduunyada hore martay tubaakadu sigaarka laga sameeya meelaha bulshada ay ku badan tahay laguma cabo ilmaha da'dooda ay ka yar tahay 18 lagama gado wasiir markaa maxaa kaaga qorshaysan tubaakada waa aragnay waadna hor keentay taambuug baash la yiraahdo sida tubaakada afka loo gishto sigaarka iyo waxyaabaha kale ee muxuu ahay muqaadaraadka dhalinyaradeena ay muxuu ahay duurka ku galeen ay ka mid tahay bilbiliga baash la yiraahdo oo daraagiska kaniiniyaalka oo daraagiska hadda tan shalay waxaa is casilay oo xilka ka tagay taliyihii dekada oo 3 shaxno oo kaniiniga bilbiliga iyo taambuuga qabtay oo lagu qasbay inuu sii daayo waliba waxaa la leeyahay run iyo been waxay tahay ma naqaan xildhibaano Soomaaliyeed ayaa ku lug leh oo muxuu ahay soo dejiyay ayaa la leeyahay marka maxaa kaaga qorshaysan waxaasoo dhan inta aan rabo inaan ku weydiiyo waa intaas aad u mahadsan waa ognahay waxyaalo kale oo in dekada laga soo dejiyo oo muqaadaraad badan ah marka wasaaradda caafimaadka waxaan ku soo jeedin lahaa in qaadka lagu soo daro maaragtay xashiishka lagu soo daro maxay ahayd waxyaalo badan oo indhaha aan ka dadanayno ay jiraan waxaan garan karnaa qaadka inuu soo naga qaado malaayiin lacaga in dalkan laga qaado waxaana xadin ah marka aeroboorada aad maraysid in intaasoo kiish oo muqaadaraad ah waddanka intii la keenay oo mas-uuliyiinta ugu sarreeya dalka iyo dadkoo dhan ay indhaha ka fiirsanayaan oo ummadeenna ay ku baaba'deen oo mujtamaceenna ay ku baaba'een oo reero badan iyo qoysas badan ay maaragtay isku fureen oo dhallinyaradeenna iyo jiilkeenna ay cunayaan waxaan dhihi lahaa xildhibaanadeenna mas-uuliyad baa inaga saaran iyo guddoonka iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka qaadka waa in lagu soo daraa qaadka waddankeena wuu dilooday malaayiin baa nalaga qaadaa waa dhibaato waddanka ragaagsatay waa ognahay waxyaalo kale oo in dekada laga soo dejiyo oo muqaadaraad badan ah marka wasaaradda caafimaadka waxaan ku soo jeedin lahaa in qaadka lagu soo daro maaragtay xashiishka lagu soo daro maxay ahayd waxyaalo badan oo indhaha aan ka dadanayno ay jiraan waxaan garan karnaa qaadka inuu soo naga qaado malaayiin lacaga in dalkan laga qaado waxaana xadin ah marka aeroboorada aad maraysid in intaasoo kiish oo muqaadaraad ah waddanka intii la keenay oo mas-uuliyiinta ugu sarreeya dalka iyo dadkoo dhan ay indhaha ka fiirsanayaan oo ummadeenna ay ku baaba'deen oo mujtamaceenna ay ku baaba'een oo reero badan iyo qoysas badan ay maaragtay isku fureen oo dhallinyaradeenna iyo jiilkeenna ay cunayaan waxaan dhihi lahaa xildhibaanadeenna mas-uuliyad baa inaga saaran iyo guddoonka iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka qaadka waa in lagu soo daraa qaadka waddankeena wuu dilooday malaayiin baa nalaga qaadaa waa dhibaato waddanka ragaagsatay tubaakadu dadka waxay moodaan tan oo afka la gasho oo keliya tubaakada sigaara laga sameeyaa waa tubaako baal hadda waxaa soo baxay taambuu la yiraahdo sida tubaakada dhalinyarada ay afka gashtaana oo ay ku marqaamaan waxaasoo dhan inaa hal daraaf laga soo dhigo ayay ahayd laakiin hadda si guud wuxuu uga hadlay wasiirka tubaakada oo keliya adduunyada hore martay tubaakadu sigaarka laga sameeya meelaha bulshada ay ku badan tahay laguma cabo ilmaha da'dooda ay ka yar tahay 18 lagama gado wasiir markaa maxaa kaaga qorshaysan tubaakada waa aragnay waadna hor keentay taambuug baash la yiraahdo sida tubaakada afka loo gishto sigaarka iyo waxyaabaha kale ee muxuu ahay muqaadaraadka dhalinyaradeena ay muxuu ahay duurka ku galeen ay ka mid tahay bilbiliga baash la yiraahdo oo daraagiska kaniiniyaalka oo daraagiska hadda tan shalay
waxaa is casilay oo xilka ka tegay taliyihii dekedda oo 3 shaxno oo kaniiniga bilibiliga iyo taambuuga qabtay oo lagu qasbay inuu sii daayo weliba waxaa la leeyahay run iyo been waxay tahay ma naqaanaa xildhibaano Soomaaliyeed ayaa ku lug leh oo muxuu ahay soo dejiyay ayaa la leeyahay marka maxaa kaaga qorshaysan waxaas oo dhan inta aan rabo inaan ku weydiiyo waa intaas aad u mahadsan